الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفرتنات يا كتاب كأني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وكلمة علو الهمة هنك سرعا وهليني وحاجرة وحيابة مظاهر يا موقال كتوسينا يا قف كان سيدي سبا إنوسان هن لهين هن سرب إنوسان لهين مرة بتاين دوغا تقف أن بهن لهين waxaa ka mid a tusaale haddaan soo qaadno dalabulcilmi haddii aan fiirino waxaa jira asal ahaanba qof aaban cilmigaba aan dalbaynin oon raadinaynin waxaa laga yaabaa ama dadka qaarkood barashada cilmiga inay u baranayaan shahaado aad qaadatid shaqo fiicanna aad ku heshid nolol fiican aad ku heshid lacag badan aad samaysid baa suuragala mid kale waxaa suuragalaba inuu wuxuu baranayo aad dadka kula doodid oo intaad cilmi yeelato wadaadada iyo halaguu tiriyo meelaha inuu istaago marba qof la doodo oo hebel baa hebel radiyey afar kelimuu bartay intaas inay tahay isku culimada isku dheerari inay intaa ka tahay baa suuragala waxaa kamid a waxyaabaha lagu garto inuusan qofku hansaraba lahayn wahsiga dacwada inuu dacwadan ka wahsanayo oo haddii la yidhaho wax jeedi ama wax hadal oo kaale kitaab dadka u aqri anigu maxaan aqrin karaa anigu miyaan ama taharub inuu ka cararayo mas-uuliyada ama inuuba dadka ka baxayaba garabkooda ka baxayo kugu sii daynayo cudurdaar badan inuu mar walba samaynayo mashquul inuu iska dhigayo wixii inuu weyneynayo uusan qaban karaynin ama wax yar oo ka dhigayo yani waa laba kala arrimood tahwiil iyo tahwiin baa la yidhaahdaa yani inuu yidhaahdo maxaa waxaa laga samaynaya hadda maxaa laga aqrinayaa fulaan iyo kutubta yaryar hadduu soo qaado maxaa kaale caruurtaaba taqaane yani uu iska korreysiinaya ama inuu yidhaahdo anugu macnaha waxaa qaban kara atawaaduc alkaadib waxa la yidhahdaa jira yani tawaaduc hoos isu dhig been ah oon jirin oo kale in dadka qaar cibaadaadka oo kale ka wahsigoodii ayaa ka mid a qofku inuu ku mashquulo waxaan muhim ahayn waxaan sara ma leh waxaan muhim ahayn baad ku mashquuli wixii ficnaana waad ka mashquulsan tahay tusaale haddaan soo qaado mar walba runtii waxaan ka fikiro waxa weeye waxyaabahan mediaha iyo facebookan iyo fulaankan iyo tiktokan iyo qashinkan tirada badan ee hadda adduunka qabsaday wixii muhimka ahaa ma qabanaysid qur-aan ma aqrinaysid wanaag samayn maysid kitaab baran maysid laakiin waxaad ku jirtaa media baad ku jirtaa marka wixii fiicnaa baad ka mashquushay wax kale ayaad ku mashquulsan tahay ama tarafkiibuu qofku iyo aada ugu xadgudbayo raaxo iyo inta maanta hala aadiyo meel heblo cuntaha laga cuniyo faan hala seexday iyo fulaan guriga sidan hala yeelay iyo alaabtan hala bedel waxaasuu suuragala inuu ku jiro marka waa qeyb ka mid a kathratu noom baa ka mid a hurdo badan qofku inuu rabo inuu iska jiifo 12 saacadood uu meesha uu jiifo oo kale waxaa ka mid a waxyaabaha muxaqiraat acmaal waxyaaba iska hooseeyo inuu ruuxii oo naf lahayn uu isaga dhannaa uu ku mashquulo dharkaaga sidan iyo baabuurkaaga iyo gurigaaga iyo fulaankaaga iyo xag yani inay tahay uun muhiimadiisu intaa waxaa ka mid a waxyaabaha ku tusinaya qofku inuusan hansaraba lahayn inuu waxyaabaha la yidhaahdo inuu amaalil kaadiba yani waxyaaba aan jirin iyo dilo iska been waxaasaan samayn doonaa waxaan qaban doonaa kanaan ka dhici doonaa waxaasoo kale waxaa ka mid a taswiif wata'jiil inuu wax walba dib u dhigaayo shay walba dib waxaan maad qabsatid waan qaban doonaa kanaan qaban doonaa maad wax baratid waan baran doonaa bisha dambaan bilaabaya sanadka soo socdaan bilaabaya yani inuu sidaasoo kale uu ku jiro marka waxyaabaha ku tusanaya asbaab tiro badan oo iyaduna waxaa jirta ku tusinaysa qofku inuusan bahan lahayn taasi muuqaal iyo madaahir bayd asbaabta ku tusinaysa waxaa ka mid a dabeecada insaanka dadka qaar baaba u samaysanba inaan waxba qabsanin iska jiifa tiifigaa raba inay iska horfadhiyaan maanta dhan iska jiifaan qaar baa raba biicada oo kale biico iyadii dhanba biica waxaa la yidhahdaa wadamada qaar wadan aan hadda soomaaliya haddaan ka soo qaado dad 30 sane ee dambe dadkii dhashay oo dhan waxaa dowlad may arkin ibdaac badan iyo waxyaaba soo saar ma arag ummad iswada laynaysa dad jidka lagu dilaayo dad iswada dhacaya dad iswada boobaya kuwii madaxda u ahaaye kuwii baarlamaanka lacag lagu soo wada dooranay wax qurux badan ay ku daydaan maba hayaanba waxaa ka mid a waxyaabaha ku tusinaysa oo dadka marka biicada iyo magaalo wadankaasi dee dad fiican soo saari maayo waayo waxa meesha ka muuqda tusaale murabbiyiin iyo mucalimiin fiican oo lagu dayda meesha ma joogo waxaa ka mid a cid kugu baraarujo oo fiican ma haysatid saaxiibo wanaagsan oo khayrka ka hadli ma haysatid waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha iyaguna keenaya
inuusan qofku fikir uusan yeelanin wax weynba uusan ku fikirinba ama meel hoose uun mar walba uu ka fikiro. hadda dad dhan oo wax kaa sarreeyaba aan jirin haddaad aragto adiguna lamid. walidaalika baa la yidhahda magaalooyinka waaweyn haddaad ku nooshahay tanaafus iyo tartan baad ku arki oo culimada hataa markaan usoo culimo kaa waaweyn baad arki oo dad kaa wax yaqaan baad arki oo adiga inaad wax barataa ku geli oo. laakiin markaad tuulo joog tahay hadda meesha adaa ugu sarreeya, cid kaa sarreysa weliga haddaada arag adigu waxaad is leedahayba meesha u sarreysa adaa jooga. marka inuu qofku mar walba hore u socdo waa arrima la yaaba insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala hankeenna hansara hayna siiyo, dad meel fiican ka fikirana haynaga dhigo, xumaantana allah haynaga badbaadiyo, thabaat fi diin illahina allah hayna siiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.